2020 bishii 2016 oo ahayd maalinimo Jimco ah ayaa istaadiyam Hargeysa waxa ciyaar kulul ku dhex martay xulka gobolka Awdal iyo xulka gobolka Sanaag. Ciyaartani ayaa ahayd mid xamaasada ku dheehan tahay oo taageerayaasha labada dhinac ay heesay iyo madadaalo halkaasi ka soo jeedinayeen sida xulka ay taageerayaan ku guul kala tagay istaadiyam Hargeysa. haddaba waxa taageerayaasha xulka gobolka Awdal ka farxiyay ciyaaryahan Baadoon oo u dhaliyay kooxdiisa goolkii koowaad ee hoggaanka ay ku qabteen. Super Mario! Goal! 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 فعل الطليان يضرب الألمان في مقتل يضرب الألمان سوبر ماريو sidoo kale waxa uu ciyaaryahan Baadoon mar labaad gool kale u saxiixay kooxdiisa goolkaasina uu noqday mid ay hoggaanka ku sii dheereystaan. ciyaartan u dhaxaysa xulka gobolka Awdal iyo xulka gobolka Sanaag ayaa waxa uu xulka gobolka Awdal gaaray guushii uu rabay. Maxamed Axmed Muuse Maxamed Jeekare TV